علومada جمهورية جيبوتي وقتيغان وعلومو دوني قاتيال علوشود لعيار او هوغانسن دقن حمدا إسماعيل عمر جيلي موادين كرير جيبوتيو موادين الدرير جيبوتي دالين يروي دكتينا مركلة إسية هدي أد هرو أوغين مانت أوغو علومada جيبوتي دمانتود ودوني قاتيال علوشود لعيار او هوغانسن دقن حمدا وكوة دالك إسماعيل عمر جيلي oday oo dhintay oo duq oo wax anshax aan lahayn iyo wada hoggaansan yihiin kuwa culimo iska sheegaya wuxuuna hogaamiye uga dhigay ama horseed uga dhigay nin ay isku hayb yihiin oo loo yaqaan Sheekh Abdiraxmaan Maxamed Ali Shamsuddin anu waxaan ugu yeeraa Sheekh Shaydaan kooxdan argagixisada ee la dhacday dalka jamhuuriyadda Djibouti shacabka reer Djiboutina fasahaadiyay oo horseedka ka yahay ee xumaan la gaboobay ee Ismaaciil Cumar Geele loo yaqaano waa kuwaas bal dhageysta sida shacabka loo madadaaliyo loo jahwareeriyo loo cabsi galiyo umbi yaqaaniin kama hadlaan dhaqan xumada dalka ka socota siyaasad xumada dalka ka socota noloshan liidata xaaladan akaran diimiska uskaga iyo fasaadinta u fasaadinayo dalka dadka iyo diintaba kama hadlaan ugu dambeyn waxaan baaq u soo dirayaa shacabka reer Djibouti intooda aqliga saliimka leh iyo dhalinyaradeedaba inay dhig ay u dhigin ama ay tixgelin culumadan calooshod la ciyaarka ee shayaadiinta ee dhaqan xumada Ismaaciil Cumar Geele aan ka hadlayn ma itiriba meesha taala wasaaradda arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga ayaa waxa ay ku soo qaban qaabisay gaar ahaan guddiga fadwada sare ee dalku uu ku soo qaban qaabiyay munaasabad kulan diineed oo looga hadlayay aafooyinka carabka iyo sidoo kale khilaafaadka xaafadda balbala 11 gaar ahaan goobta ka agdhow masaajidka Ciisadiin waxaana ay ahayd mid bulshada looga warbixinayay dhibaatooyinka kala duwan ee aafooyinka dhinaca carabka waxaana ay ahayd mid culimada dalku ay u joogeen oo kamid ahaa Sheekh Abdiraxmaan Shamsuddin iyo Sheekh Cawaale Daahir iyo Sheekh Aadan Muumin waxa kale oo u joogay Sheekh Shamsuddin iyo culimo kale waxaana ay ahayd mid wacdigaasi ay ka qabteen habeennimadii xalay toole xaafadda balbala 11 gaar ahaan masaajidka ka agdhow Ciisadiin ilaahay ku xusno on waqtigeena waqtiyo kamida aan iskugu imanno habeenada ilaahay kamida inagoo iswaaninayna oo wax isku sheegayna oo kitaabkii ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii aan ugu dhaqmi lahayn u qaadan lahayn iskugu dardaarmayna waxaan aad idinku mahadnaqayaa khayrka aad nagala qayb galayseen ilaa annagana nagu marti qaadeen annagoo ilaahay dhammaanteentuba ajar kaga doonayna kuwii dadaalka iyo juhdiga intaa leeg bixiyey ee ka shaqaynayay muddada intaa leeg iyo inta imatay iyo inta ka soo qayb galaysay culimuhuba nintuba ilaahay bay wax kaga doonayaan nin walba wuxuu doonayo khayr Allah siiyo